dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya ayaan oran karnaa waxa ay doorteen in ay duugaan ama daboolaan kiiskii iska cadda ee loo haystay una xirnaa Cabdiwaaxid Khaliif Ciise Tarabuun oo ahaa madaxii amniyaadka gobolka Banaadir ee ururka Al-Shabaab kadib mar ay shaacisay dowladda Kenya in uu gudaha dalkeeda soo galay Ciise Tarabuun waxa iyana ka aamusay taliyihii sirdoonka qaranka haystay waqtigii la soo qabanayay Ciise Tarabuun Abdullaahi Sambalolshe oo sheegay in uu soo bandhigi doono cadeymo la xiriira Cabdiwaaxid Khaliif Axmed xilliga ay kacsanayd heeshada ka dhalatay hadalka ka soo yeeray dowladda Kenya. Cabdiwaaxid Khaliif Axmed oo dhanka Al-Shabaab looga yaqaan Ciise Tarabuun ayaa muddo ka hor u muuqday kiiskiisa mid xasaasi ah lagana yaabay in dowladda hadda talada haysa ay kaga imaan kartay fadeexo dhanka amniga iyo socdaalka ah. Ciise Tarabuun oo ahaa xubin sare oo ka tirsan Al-Shabaab una qaabilsanaa go'aanka kama dambaysta ah ee Al-Shabaab cidda ama shakhsiga ay ku dilayaan magaalada Muqdisho ayaa sanadii 2017 soo galay gacanta ciidamada dowladda Soomaaliya iyadoo si gaar ah ay soo qabteen ciidamadii xasilinta ee xukuumadda hadda talada haysa ay sameysay. ciidamada xasilinta ee hadda la baabiyay ayaa sameeyay kal hore howlgalo qaar kuwaasi oo loo arkay fikradda in la sameeyo ay tahay mid dhaxalgala balse aan lagu guuleysan sii jiritaanka ciidamada xasilinta. howlgallada muhiimka loo arkayay ay sameeyeen ciidamada xasilinta ayuu ka mid ahaa midkan lagu soo qabtay Cabdiwaaxid oo ay Al-Shabaab u yaqaaneen Ciise Tarabuun. howlgal qorshaysan oo ay sameeyeen ciidanka dowladda ayaa suuqa weyn ee Bakaaraha waxaa gacanta looga soo dhigay Ciise Tarabuun oo halka ku dhuumaaleysanayay kulamo gaar ah oo ay yeesheen madaxda amniga dalka qaybahooda kala duwan. kadib wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay soo qabteen sarkaal ka tirsanaa Al-Shabaab xubin muhiimna ahaa isagoo sheegay in Cabdiwaaxid Khaliif uu ahaa madaxa amniyaadka Al-Shabaab. si kale haddii aan u dhahno madaxa kuwa u dhaqaaqa kaliya in ay qof dilaan ee Al-Shabaab u jooga xamar. Maxamed Abuukar Islow wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay qaabka gacanta loogu soo dhigay Ciise Tarabuun in uu ahaa xubin mug weyn leh oo ka tirsan Al-Shabaab inuu qorsheeyay dilal badan iyo in maxkamad la soo taajin doono. intaas kadib Ciise Tarabuun maxkamad kama uusan soo muuqan isagoo leh dhammaan sifihii uu ku sheegay wasiirka amniga ay ka mid ahaayeen inuu yahay madaxa amniyaadka Al-Shabaab u qaabilsan gobolka Banaadir iyo inuu fuliyay dambiyo dil u badnaa inta uu ku dhex jiray howlaha ay u igmadeen Al-Shabaab. iyadoo inta uu ku ekaa kiiska Ciise Tarabuun waxyaabaha sida gaarka ah looga og yahay ayaa 24 bish September sanada 2019 warqabadka ciidamada booliska dowladda Kenya waxa ay sheegeen in dalkooda uu soo galay Ciise Tarabuun oo ah xubin muhiim ah oo ka tirsan Al-Shabaab ayna ku raad joogaan. warbixinta booliska Kenya ay baahiyeen ayaa naqatay mid noo bidhaamiso arrimo badan oo naga daahsoonaa sida shaki laga muujiyay hay'adaha amniga laanta socdaalka Soomaaliya iyo eedo kala duwan ay isku jeediyeen mas'uuliyiin horay dowladda xil uga soo qabtay iyo shakhsiyaad saaxiib dhow u ah madaxweynaha dalka Soomaaliya. kadib markii kiiska ay weyneysay Kenya baraha wax lagu baahiyana saxaafadda ay uga hadashay waxaa arinta ugu horeyn bartiisa Facebook uga hadlay shakhsiga lagu magacaabo Cali Yare Cali oo lagu sheegay in uu saaxiib dhow u yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya. Cali ayaana bartiisa ku soo daabacay ugu horeyn sidan: Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi Ciise Tarabuun muddo 14 maalmood ah ayaan aniga isaga oo kaliya hal qol oo 3 mitir ah ku wada xirnayn. taariikho badan iyo 9 qiso oo wada cajiib ah waan ka qoray. waxaan ku soo bandhigi doonaa buugga maxbuuska madaxweynaha. Ciise Tarabuun waa nin aad xirfad iyo xariifnimo badan. maalin ka hor intii aanu xilka taliyaha nabad sugidda la wareegin General Gafow ayuu taliyay ku-xigeenkii NISA ee xilligaasi Cabdalla xilli saqdhaxa ah xabsiga ka sii daayay horeyna ugu sii qaatay gaari yar oo nuuca xarakada ah. waxa ay xigtay dowladdan oo mar kale soo qabatay sax ahaanshaha sheegashada Kenya. laamaha amniga iyo warfaafinta dowladda ayaa nooga filan. intaas ayuu ku soo daabacay Cali Yare Cali bartiisa Facebook.
hadalka saaxiibka dhow ee madaxweynaha Caliyare Cali markaan si qoto dheer u faano waxa uu cadeynayaa in mar xabsiga laga fasaxay Ciise Tarabuun oo dib loo soo qabtay sida ay dowladda Soomaaliya cadeynayso xukun 2 sano ah ayuu soo qaatay Cabdiwaahid Khaliif Cabdi oo hal mar ah kadib qoraalka Caliyare Cali waxa hadal jawaab u muuqda bartiisa Facebook soo galiyay Cabdullaahi Sanbalolshe oo xilligaas soo qabashada Cabdiwaahid ahaa taliyaha nabad sugidda qaranka isagoo u muuqda in uu dafirayo hadallada Caliyare Cali ayuu soo qoray sidan yaa damiintay Ciise Tarabuun oo ahaa madaxii amniyaadka al-shabaab ee Muqdisho 12 barqanimo ayaa waxa xafiiska shaqada igu soo booqday Caliyare iyo nin lagu magacaabo Xuseen Yar oo kamid ahaa saraakiisha NISA 19 Agoosto Caliyare ayaa watay waraaq igu socota lagu doonayo in la sii daayo Master Tarabuun oo aan markaasi qorsheenayn maxkamad la saaro 27 Agoosto 2017 ayaa la sii daayay waxaana lagu qoray damiin Cali Cabdi Wardheere oo ay qabiil ahaan isxigaan Ciise Tarabuun waraaqadii lagu damiintay mar dhow ayaan la wadaagi doonaa cidda ay arrinkan muhiimka u tahay Cabdullaahi Sanbalolshe warqadii lagu damiintay Ciise Tarabuun maxay tahay sababta uu soo bandhigi waayay halka marka uu xaal marayo wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ayaa soo saartay saxaafadeed ay ku cadeynayso in dowladda ka warqabto arrinkan Cabdiwaahid oo loo yaqaan Ciise Tarabuunna uu yahay shakhsi xukunkiisa dhameystay fasaxna uu ka yahay dowladda Soomaaliya balse wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya ayaa xukunka uu qaatay Cabdiwaahid ku soo koobtay falal argagixisanimo iyadoo aan qeexin argagixisada uu ku eedeysnaa ma ururkii burburay ee Xisbul Islaam mase ururka al-shabaab waa kan war saxaafadeedka wasaaradda sida uu qornaa Muqdisho 29 September 2019 war saxaafadeed dowladda federaalka Soomaaliya ayaa cadeynaysa in Cabdiwaahid Khaliif Cabdi oo ku magac dheer Ciise Tarabuun uu yahay muwaadin Soomaaliyeed oo soo dhameystay xukunkiisa maxkamadeed kusimaha wasiirka ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya mudane Aadan Isaaq Cali ayaa sheegay in sanadkii 2017 oo Cabdiwaahid loo xiray eedan la xiriir argagixisanimo ay dacwadiisa qaatay maxkamadda ku shaqada leh ee ciidamada qalabka sida oo markii ay kiiskaasi baartay ku xukuntay 2 sano xabsi ah Cabdiwaahid ayaa markii uu dhameystay xabsigii ay maxkamadda militariga ku xukuntay la sii daayay sida sharcigu qabo waxa sii deyntiisa in muddo kadib lala socday dhaqdhaqaaqiisa iyo xaaladaha ayuu yiri kusimaha wasiirka ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta mudane Aadan Isaaq dowladda Soomaaliya waxay si cad u muujinaysaa in Cabdiwaahid uu yahay muwaadin maray xukun ciqaabeed xabsi 2 sano ah oo ay ku xukuntay maxkamadda militariga Soomaaliya dhinaca kale baasaboorka uu sitay Ciise Tarabuun ayaa ku qeexnaa in uu yahay ganacsade Soomaaliyeed taasi oo shaki weyn gelisay badqabka laanta socdaalka Soomaaliya kuwa maamula markii Cabdiwaahid Master Tarabuun laga gal raaco shakhsi ahaantiisa hadalka wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya ku darso waxa jira muwaadin ku jira xabsiyada Soomaaliya oo markuu biiray al-shabaab oo xuuraansiyo hay'adaha amniga ay sameeyeen kadib loo soo xiray laazimayna xukunno ka badan kan dowladda ay ku sheegtay in uu soo qaatay Master Tarabuun madaxii amniyaadka al-shabaab balse aragtiyada shacabka uma aysan muuqan mid ay kaga qanci karaan xukun ahaan inuu qaato madaxa amniyaadka al-shabaab 2 sano oo xarig ah Kenya iyo Soomaaliya way caddahay in kiiskan ay isku afgarteen Cabdiwaahid Khaliif Cabdi oo loo yaqaan Ciise Tarabuun dowladda Kenya maxay u cadeyn laadahay in ay gacanta ku hayaan ama uu dalkooda ka baxsaday